madasha xil wareejinta wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka dhacday gudaha wasaaradda waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada safiirada dalalka shisheeye fadhigoodu yahay Soomaaliland mudanayaal ka tirsan golaha guurtida wakiilada komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa gudida tacliinta sare aqoonyan marti sharaf kale ugu horeyn waxa la soo dhaweynaa madashaasi ka sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi wuxuu ka waramay shaqada ay wasaaraddu qabato mudanayaal iyo marwooyin wasaaradda arrimaha dibaddu waxa weeye waa tiirarka ugu muhiimsan qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waa wasaaradda hagta siyaasadda arrimaha dibadda waa wasaaradda ay 4 milyan ee shacabka Soomaaliland ay ka sugayaan inay keenaan ixtiraaf iyo ay ku naaloonayeen 7 sano la soo dhaafay runtii waa mas'uuliyad weyn oo culus Dr. Saad Ali Shireen mas'uuliyadda waxaan aaminsanahay inuu meel wanaagsan gaarsiiyay dadaal badan inuu muujiyay wuxuu ahaa wasiir karti badan shaqo badan shaqeeya daacada kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo ka waramay taariikhdii wasaaradda arrimaha dibadda ay soo martay 27 sano ee ay Soomaaliland jirtay irgagaarka Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD Cabdilaahi Maxamed Ducaale ilaa 97 aynu dib misna iyadoo xad qarabeedkii xoog loo xujada weyn qabay oo gabaabsi noqday nasiib wati dastuur la sameeyay dastuur qaran oo noqday aasaaska qaran dhiska Soomaaliland runtii taasoo waxay keentay in ururo siyaasadeed la abuuro in la sameeyo oo multi political party aynu sameeyno wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ka hadlay jihada ay wasaaraddu qaaday u socoto iyo saaxiibada cusub ee ay samaysatay laga si wanaagsan wasaaradda uga tagay haday noqoto qaab dhismeedka haday noqoto muxuu ahaayay jamhuuriyadda siyaasadda iyo waajibaadka waaxyaha iyo shaqaalaha haday noqoto qoraallo iyo daabacado dhaxalgala oo wasaaradda uga tagay siyaasadda iyo hawada barnaamijka wasaaradda arrimaha dibaddu mala aan kala qaran madax banaani waxay ka mid tahay muxuu ahaayay tiirarka muxuu ahaayay dal madax banaani uu leeyahay wax badan baa la qabtay Soomaaliland saaxiibo hore lahayd saaxiibadiisii bay leedahay saaxiibo cusub bay yeelatay oo Soomaaliland maanta ay la xiriirdo oo la tacaamusho iyo heshiisyo la gasho wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland isaguna munaasabadda xil wareejinta hadal kooban ka sheegay Maxamed Saad Saajin ayaa ku tilmaamay Saad inuu yahay wasiir hawlkar ah oo wax qabad badan muujiyay muddada uu wasaaradda joogay laba ictiraaf baa jira ictiraaf dhaqaale iyo ictiraaf siyaasadeed haddii dhaqaalaha uu liito dadka uu liito shaqalaantu ay farabadato iyada nafaati waa ictiraaf laan alfo aad iyo aad buu soo dadaalay kama fariisan uu wareegay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda u dhawaan madaxweyne Muuse Biixi u magacaabay wasaaradda amaariyadda Dr. Saad Ali Shireen ayaa ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddada 3 sano uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda waxa loo kala jebin karaa hawsha wasaaradda ay qaranka u hayso 5 qaybood qaybo waa siyaasadda waa arrimaha la xiriira sida tooska ictiraaf waxaan doonay halkan ku yara cadeeyo hadii jeer wax la yiraahdo 27 sanadood baynu jiray halgamaynay meel walba ka dhacnay dadaalay laynama ictiraafin anu ma qabo inaan layna ictiraafin wala layna ictiraafsan waxa kaaga marxaatiya safaaradaha halkan jooga maanta halkan may joogin haddaan wadankan la ictiraafsanayn rabitaanka iyo ogolaanshaha dalkan ay halkan ku joogaan qofna degadiisa kama soo dego qofna erboorisa kama soo dego haddaanu inaka ogolaansho naga haysan wala in ictiraafsan heshiisyeenu galaa waa laynoo yimaadaa dadkeenu tagnaa ma joogno halkii uu ka bilaabay Sheekh Yuusuf 1991 wadankan kii hore ka duwan hawlaha laga qabto sidii loo fulin lahaa xilalka ka saaran wasaaradda dhinaca siyaasadda waxa ka mid ah sidii saaxiibo loo samaysan lahaa sidii aynu qadiyadeena aynu u iibin lahayn sidii aynu ula kulmi lahayn
dadka nufuudda kule caalamka intiisa kale madaxdiisa. sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xaaji Faratoon ayaa ka warramay qorshayaasha uu ku hagi doono mustaqbalka wasaaradda arrimaha dibadda gabagabada arrimaha dibaddu dhammaan danaha iyo xidhiidhada Somaliland caalamka la leedahay in laga midho dhaliyo laga shaqeeyo oo ay wax danaha Somaliland iyo siyaasadeeda ay u adeegto darab badan baa jira oo aan ictiraafku bal la gaaro waqtigiisa waa ka ugu sareeya waa ultimate stage laakiin de waxa jira darab fara badan oo la miisaan ah oo ay tahay in la helo oo la gaaro oo laga shaqaysiyo si maxay tahay Somaliland ay u horumarto oo aakhirkana ictiraafka u hesho gabagabadiina waxaa si rasmi ah xilka uu la kala wareegeen labada wasiir